السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمتى سنة أيها سنة كفكريس أو وقت كاغا دماday. إمتى سنة أيها دهيسي aad baratay luqadda Englishka ama إمتى سنة أيها دهيسي aad quraanka xifdisid. إمتى سنة أيها isdhahaysay aad gym aadid oo exercise badan aad sameeyso jirkaaga dhistid. إمتى سنة أيها isdhahaysay aad course cusub baratid. haddaba waa maxay waxa ku haystaa waxaan rabaa inaan kula wadaago hadduu Ilaahay idmo muuqaal aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan in maanta wixii ka dambeeya haddii Ilaahay idmo aad wax kasto aad rabtid aad qabsan doontid sidee ayay ku dhici doontaa bal ila joog ilaa dhamaadka muuqaalkan like noo saara haddii nagu cusub tahayna subscribe leh in muddo ayaan u fakarayay sida u fakaray sidoo kale in badan ayaan isku dayay in luqadda Ingiriiska barto oo waliba waxaan sameeyay in badan oo adigu sidaan kale asmaysid salaam waxaan dhahay waa inaan maalintii 2 saac kamid ah aan luqadda bartaa ama dadka qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan 1 saac oo maalintii kamid ah waa inaan gym aadaa soo laga yaabo inuu qofku shaqo maalin la qabto haddaba ka waran hadii aan ku iraahdo exercise baa samayn kartaa kitaab baad akhrisan kartaa ama buug baad akhrisan kartaa wixii aad akhrin kartaa luqad baad baran kartaa course kale cusub baad qaadan kartaa haddana shaqadaadii maalin laha ahayd ee haddii aad jaamacad dhiganaysa ama iskuul dhiganaysa ama aad goob ka shaqaynaysay shaqadaadii full time ka ahayd ayaad haddana aadaysa sidee ayay ku dhicnaa isleeda waxa adeegsanaynaa waxa la yiraahdo caadooyinka yaryar ama mini habits waxa weeye caadooyin natiijooyinka laga filahaya ama waxyaabaha aad ka filaysid inaad ku gaartid ay aad u hooseyso halka caadooyinkii hore aan sameyn jirnay ee aad inaan maalintii 2 saac luqadda aan barto ama 3 saac aan barto ama inaan maxaa la yiraahdaa aan 1 saac oo maalintii kamid aan gym aado waxyaabaha aad ka filahay ay aad iyo aad u sareyso oo inaan maxaa la yiraahdaa aan siraado bilka bacdi ama 2 bilka bacdi haddii aad yoomiye 3 saacadood ku qasaarisid barashada luqadda Ingiriiska waad ku hadli doontaa laakiin tan maya tan waxa weeye way ka hooseysaa filasho aad iyo aad u hooseysa waa tusaale ahaan meeshii 2 saac ka baran lahayd luqadda Ingiriiska yoomiye waxaad ka dhigaysaa 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo waa maxay 5 daqiiqo faa'iido ku jirta waxa weeye caadooyinkan yaryar waxa fudud in la joogteeyo oo tusaale ahaan haddii aniga maanta aan go'aansado inaan 5 daqiiqo aan luqadda barto 3 daqiiqo aan buug ku akhriyo 2 daqiiqo aan exercise ku sameeyo 1 daqiiqo aan nolosheeda iyo waxyaabahaas waxa noocaas aan ka fakaro all wax dhamaantood wax aan sameyn karo oo sahlan faa'iido kale ay leeyahay waxa weeye waa wax la joogteyn karo oo hal maalin aan ka baaqanin inaad tiraahdo luqadda Ingiriiska ama luqadda Carabiga ama ay luqad aad u aragto inaad baratid ayaan waxaan sameynayaa 5 daqiiqo oo kamid ah ayaan maalintii ayaan siinayaa bal qiyaas 5 daqiiqo ma noqonayso waqti wax aad furin weyn kartid xitaa haddii aad caajisan tahay hurdo ama xogaa yar xanuun dareemaysid 5 daqiiqo waa wax aad sameyn kartid oo waliba u sameyn kartid si maalin la ah laakiin markaad tiraadid waa inaan yoomiye 3 saacadood aan luqadda bartaa 2 maalin oo hore ama isbuuc hore markaa wadid ayaad waxa bilaabaysaa hoos u dhac iyo inaad sii wadi weysid oo joogtinta kaas ku dhamaato halkaasna waxa ku hari doona maalmo kadib hadafkii ahaa barashada luqadda sidoo kale ahdaaf badan oo yaryar ayaa isla meeshaas ayaguna ku dhiman doona laakiin wixii maanta ka dambeeya waxaan filayaa insha Allah tacaala inaad hadafyo badan gaari doontid oo aad adeegsan doontid waxaan loo yiraahdaa caadooyinka yar ama luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo mini habitsku waxa weeye adigoo shaqaysta ama wax barta wax akhri luqad baro xirfad baro exercise samee fikir samee qorshe cusub ka fakra daarabtid waxaas oo dhan waxaad ku qabataa wax ka yar 1 saac ama nus saac mid 5 daqiiqo si midka ugu badanna 10 daqiiqo si waxaan filayaa wixii maanta ka dambeeya inuu meesha ka bixi doono marsiihii ahaa waqti uma haysto waan shaqeeyaa waxbaan bartaaye ma wax kale aan akhrin karaa
aad baa u mahadsantihiin inaad muuqaaladeena si bilaasha ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second